madaxweyne oo ka kala yimid dowlad deegaanka ay ka kooban tahay Itoobiya afar madaxweyne oo ka kala yimid qaar kamid ah dowlad deegaanada ay Itoobiya ka kooban tahay ayaa soo gaaray magaalada Jigjiga sidoo kale waxa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida lagu xusayaa toddobaadka dalxiiska oo uu martigeliyay deegaanku Bare Cali Qaache ayaa noo faafahinaya وفوج kala duwan ay kamid yihiin madaxweynaha deegaanka Amxarada Mudane Tamaskan Tirino madaxweynaha deegaanka Oromada Mudane Shamilis Abiza madaxweynaha shucuubta koonfureed Mudane Risto Yado madaxweynaha deegaanka Heerida Mudane Urdun Badro iyo wasiirro kale oo heer federaal ah oo kamid yihiin wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska dalka Itoobiya Dr. Hilid Kaasow ayaa soo gaaray magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida si ay uga qayb galaan xuska maalinta dalxiiska adduunka oo sanadkan wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska dalka Itoobiya ku qabanayso deegaanka Soomaalida madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo mas'uuliyiin sarsaro oo kamid ah xukuumaddiisa ayaa wafdiga si weyn ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Garadwilwal nasasheer kadib madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo hareero joogan madaxweynayaasha deegaanada Oromada Amxarada Heerida iyo shucuubta koonfureed ayaa si wadajir ah u dhigay dhismaha xarunta hidaha iyo dhaqanka Soomaalida oo markii hore laga hirgelinayo deegaanka Soomaalida intaasi kadib wafdiga ayaa ka qayb galay munaasabadda maalinta xuska dalxiiska adduunka oo sanadkan lagu qabtay magaalada Jigjiga ugu horeyntii waxa munaasabadda ka hadlay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar isagoo tilmaamay ahmiyadda dalxiisku leeyahay bulshooyinka caalamka sidoo kale wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska ee deegaanka Soomaalida Ilyas Abiib oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in deegaanka Soomaalida uu leeyahay goob fac weyn oo taariikhi ah isla markaasna loo dalxiistay karo waxaanu sheegay in deegaanka Soomaalidu caan ku yahay ciyaaraha kala duwan ee hidaha iyo dhaqanka Soomaalida munaasabadan ama xuskan arrimo kala duwan ayaa lagu soo bandhigi doonaa oo qayb ka noqon doonto dood cilmiyeed hadda lagu soo bandhigi doono khayraadka dabiiciga kan taariikheed iyo sidoo kale kan khayraadka duurjoogta ee deegaanka uu leeyahay mudanayaal iyo marwooyin deegaankeenu waxyaabo fara badan oo soo jiidasho mudan ayuu leeyahay fursado kala duwan uu leeyahay oo dalxiis oo ugu muhiimsan tahay bulshada Soomaalida oo ah bulsho soo dhaweyn leh isla markaana martideeda marti sooriyaysa ahmiyadda dalxiisku leeyahay dunida oo markii koobiya fatanaad caalamka laga xusayo halka Itoobiya laga xusayo markii 3 geesta kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo wasiirka dalxiiska dalka Itoobiya Dr. Hilid Kaasow ayaa xariga ka jiray xarun lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka Soomaalida gaarka u leedahay sidoo kale madasha waxa lagu soo bandhigay cunto dhaqameed iyo ciyaar dhaqameed kuwaas oo qayb ka ah maalinta xuska toddobaadka dalxiiska oo si weyn loogu xusay magaalada Jigjiga ugu dambeyntii wafdiga ayaa darbeelis ku sameeyay wadada Cornel Yusuf Dheere oo dhawaan la dhisay isla markaasna halbaro noqon doonta magaalada Jigjiga Bare Cali Qaache RTN TV Jigjiga